Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Cunugaaga ma ku aragtay oohin joogto ah, kacsanaan, hurdo la'aan, weliba isagoo dhegta ku dheggan ama jiidaya mar walba, qandho, barar ama danqasho dhegta gadaasheeda ah, matag, qoor xanuun, maqalkiisa oo daciifa, iyo dhegtoo qoyaan leh ama dheecaan ka burqanaya. Haddii jawaabtu haa tahay, cunugaaga wuxuu qabaa ciladan ee aqoon u yeelo, lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Astaamaha aan kor kusoo tilmaamay waxaa iska leh hurgunka ama caabuqa ku dhaca bartamaha dhegta, afka qalaadna lagu dhaho otitis media. Ciladan waxay timaadaa markuu dheecaan ku sameysmo qaybta gadaale ee xuubka ka dambeysa. Tani waxaa badanaa carruurta u keena hargabka, sanboorka iyo ifilada. Dheecaanku wuxuu bakteeriyadu u oggolaadaa inay ku kobacdo ayna cadaadis dul dhigto sagxadda dhegta. Waa xanuun ku badan carruurta, boqolkiiba 75, weliba carruurta ka yar 10 sano. Wuxuu kaloo si khaas ah ugu badan yahay carruurta qabta burkiitada, sanboorka, hargabka soo noqnoqdo iyo quumanka. Carruurta yaryar maadaama aysan sheegan karin astaamaha kor ku xusan, wuxuu waalidku ku fahmi karaa arrimahan soo socda: 1. Qandho siyaada ah. 2. Cunuga oo dhegta jiijiido ama xoqxoqo ama si joogto ah gacanta ugu hayo markuu oynayo. 3. Cunno xumo. 4. Hurdo la'aan iyo xanaaq iyo oohin habeenkii ah. 5. Codadka khafiifka ah oo uusan cunugu maqli karin. Maxaa sababa caabuqa dhegta? Waxaa keena jeermis ama caabuq dhaliye, kaas oo noqon karo virus, fungus ama bakteeriyo. Waxaa halis ugu jira xanuunkan ama uu ku badan yahay carruurtan: 1. Ilmaha ku jira xanaanada. 2. Ilmaha waalidkoodu sigaarka ku ag cabo. 3. Ilmaha iyagoo yar masaasada caanaha lagu bilaabay. 4. Ilmaha oo caano la siiyey iyagoo dhabar u jiifo. 5. Ilmaha faruuran. 6. Ilmaha qaba xanuunka iinta ah ee loo yaqaan Down syndrome. Sidee loo baaraa xanuunkan? Marka isbitaalka timid waxaa la kulmi doontaa dhakhtarka carruurta ama dhakhtarka ENT-ga, kaasoo ku takhasusay cunaha, dhagaha iyo sanka. Wuxuu dhegta ku eegi doonaa qalab, iyadoo la fiirinayo barar ama dilaac xuubka dhegta ah ama xirnaansho ama wasakh ku aruurtay sida malax oo kale. Dhakhtarku wuxuu ku diri doonaa baaritaan dhiig ah si loo ogaado infekshanka heerka uu gaarsiisan yahay, ama wuxuu dheecaan ka qaadi karaa dhegta xanuunsan si jeermiska dhibka keenay loo baaro, amaba daawo ayuu ku qori doonaa taasoo noqon karta goojo, kaniini ama sharoobo. Marmarka qaar waxaa dhacda in baaritaan raajo ama iskaan lagu diro, weliba haddii laga shakiyo cillad dhegta ka baxsan sida caabuqa sanqada ama caabuqa lafta ka dambeysa dhegta. Daawada lagu qori doono waxay ku xiran tahay jeermiska caabuqa dhaliyay. Fadlan, dhegta ha ka qoryaynin carruurta, hana ku shubin dareere, daawo dhireed ama waxyaabo kale. Tan waxay xannibi kartaa tuubada dhegta, iyadoo sababi karta maqal la'aan ama dhaawac. Sidoo kale, hadduu xuubka dilaacsan yahay, wixii aad ku shubtay gudaha ay usii gudbi karaan, taasoo keeni karta xanuun halis ah sida qoorgooyaha. Xanuunkan haddii aan la daaweynin wuxuu isu beddelaa caabuq dhegta oo raaga, kaasoo dhici karta in sanooyinku hayo ama maqalku uu kaa lumiyo. Marka carruurta ha ku fiirsan ciladan ee isla markii ka daawey. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya casharkan. Wixii su'aalo ah noogu soo gudbi qaybta comments ee muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.